runtii farxadayda lama soo koobi karayo aad iyo aad baan faraxsanahay laakiin waxaan maanta farxadayda aan tabayaan ka maqan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ah mas'uulkii ugu sarreeyay qaranka ee aan runtii tacabkii dadaalka badan gelinay runtii labadii jaamacadood ee waaweynaa qaranku 3 jaamacadood buu leeyahay waa jaamacadda Camuud iyo jaamacadda Hargeysa jaamacadda Burco runtii labadii jaamacadood buu la wadaagay farxadoodii laakiin waxaan leenahay madaxweyne haddaan ardaydii jaamacadda Burco waan booskayga waa nagu bannaan yahay runtii waanaan ku tabaynaa mana garanayna meesha nagu halaysay madaxda dawladda xafladii nagu banaysay siiba madaxweynaha sida ardaydii ugu horeysay sheegtay ma garanaysaa waxa qaranku 3 jaamacadood baa ugu waaweyn waa Burco University iyo Camuud University Hargeysa University sidaynu arkaynayba labadii jaamacadood uu ka qayb galay Hargeysa iyo Camuud saaka waanu ilaa xalay waxana lagu lahaa madaxweynihii uu soo guuranaya uu soo socdaa xalay waxaan ku seexnay inuu madaxweynuhu ma garanaysaa aanu saaka ku tagi doono jaamacadda ama noogu iman doono hase ahaatee markaanu madashinimi waxaa noo muuqatay in sasaanka ka duwan yahay annagu arday ahaan waxaan u baahnayn gobolladii kale maadaama nahay Burco caasimadii labaad in madaxweynuhu xafladda ka soo qayb galo taas ma dhicin sidaro deenu runtii annagu taa waan ka xunnahay waxaan nagu abuuraysaa foobiyo maadaama madaxweynaha Hargeysa ka qayb galay Boorama ka qayb galay aan Burco aan iman taas waxay noqonaysaa in gobollada bariga aan muhiimada koowaad siin jirin xafladda maanta ka dhacaysa jaamacadda Burco wadanka madaxweynihii wadanka waan sugaynay oo in badan baan sugaynay kama soo qayb gelin waxaan leenahay madaxweyne waxa la oran jiray madaxweynuhu xagga galbeed buu isu buriyay maartay gobolada bariga inta badan mahmiyada ma siiyo annagu haddaan nahay dhalinta gobolka Togdheer maanta ay noo cadaatay madaxweyne wadanka inaan daacad wada ahayn waayo Camuud waan arkaynay oo aad ka qayb gashay jaamacadda Hargeysa oo aad ka qayb gashay laakiin maanta oo ardaydii jaamacadda Burco ay qalin jabinayso maadima noo guud ahaan buu u jirtay madaxweyne jaamacadihii kale Camuud iyo Hargeysa madaxweynuhu ka soo qayb galay anagu aad iyo aad waxaan dhiirigelin bay noo noqon lahayd hadduu nagala soo qayb gali lahaa madaxweynuhu dhammaan gobolkii oo dhan ardaydii wixiiba dhiirigelin bay u noqon lahayd annaga madaxweynahaygii waanu jecel lahay waxaan jeclaan lahayn inuu noo yimaado laakiin annaga naga gabiye qolqolyaha kale yaanu gabin doonayna kelmad yar u gudbiyo madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay madaxweyne jaacad waa jaacadii dawliga ahayd ee gobolka si weyn baan ku sugeynay waxaan leenahay madaxweyne alxamdulillah thanks for Allah waxa mahad iska leeyahay marka xigta waalidiinteedana mahadnaqaynaa maamulka jaamacadana mahadnaqaynaa adigoo xabiib baan ku masaaka waxa halkan farxadan nagala qayb qaadanaya dhammaan asxaabteedii iyo familygii iyo madaxdii gobolka waxaan aad iyo aad uga xunnahay in madaxweynaha qaranka oo ah madaxweyne gobolkan Togdheer iyo magaalada Burco aad looga halgamay laga taageeray inuu saaka xalfadeeda ka maqnaado isagoo ka qayb galay jaamacadihii dhigayga ahaa hore ee Camuud iyo Hargeysa University madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne dalka madaxweynaha u wada tahay waxay ahayd saaka inaad jaamacadda Burco timaado oo mudnaanta koobaad ka leh Hargeysa iyo Boorama marka la eego laakiin aad iyo aad baan uga xunnahay in aad labadaas ka qayb gashay waxaana u muuqanaysaa inaad labadaas madaxweyne u tahay anaga madaxweyne noo ahayn bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaamac Axmed oo ka qalin jabiyay kulliyadda veterinary xanaanada xoolaha halkan waxaan hambaliyo uga dirayaa dhammaan ardayda aan wada graduate gareynay dhamaantoodba